الرحمن الرحيم أنا أكو الله يا مجاعيجا iyo magaca hay'adda wakiilka u ahay al-Hilaal al-Ahmar waxaan ku talagalnay ama qorshahayagu yahay bishan Ramadaan walaalaha iyaga Yemeniyiinta ah ee qaxootiga ah iyo kuwa Soomaaliyiinta ah ee ka soo qaxay dalka Yemen inaanu afurino waxa weeye bishan Ramadaan waxaan sii wadi doonaa waxyaalaha kale aan ku taageeri doono haday noqoto waxa binaadannimo haday noqoto macaawinooyin kaleeto ku ekaamayso Hilaal al-Ahmar ama dawladda Imaaraadku inay afurka kaliya ay bisha Ramadaan tahay mooyee sidoo shuyuukhdu noo sheegtay iyo codsiyadooda iyo dhamaanba waxaan sii wadaynaa in aan wixii kaleeto oo lagu taageeri karo lagu sii taageero Hilaal al-Ahmar iyo dawladda Imaaraadkuna waxay diyaar u yihiin inay caawinaan hawsha ka qayb qaataan ma aha markii ugu horeysanay dawladda Puntland iyo dawladda Soomaaliya waa caawinaanin hadii jeer waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan horumarka caawinaadda dadka kaleeto ee Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed waana sii wadi doonaa insha Allah taala waxa weeye afurwan waxaan halkaan uga mahad celinaynaa mahad alle kadib jamciyadda Hilaal al-Ahmar al-Imaarati oo dadka qaxootiga ka soo qaxay Yemen oo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin labadaba ku afurinaya halkaan bisha Ramadaan inta ka hadhay afurkoodiina kafaalo qaaday oo bixiyay وحلنا جزاهم الله خيرا الله وبركاته دولة إماراتك هي جمعية هي انتبه الله وبركاته وحاسله ورقايا دي وجوه الرئي وكي من حق دولتها عربتها وحنا الرجينا يا إن شاء الله وكلنا كذب يمادان. الرحيم فركورة وحنا مهد لنا يا حفلتان أفرنتها هلال الأحمر إماراتي الكوا أفرنا يا أنتك محاذي كسوق حي يمن gaar ahaan kuwa Yemeniyiinta iyo kuwa Soomaalida iyana ka soo qaxay Yemen waxaan leeyahay Ilaahay khayran ka siiyo Ilaahay maxaaday xasanaadkii wanaaga sameynaysan in la walaabo aad baan ugu faraxsanahay in dadka walaalaheena oo meeshan ku jira la afuriyo oo ay afurso jamciyada khayriya aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana waxa diinta islaamka iyo bini'aadanimada qawaaniin in qof gaajaysan waxba haysan la afuriyo runtii afurintan qiimaha badan oo ay ka geysteen Hilaal al-Ahmar Imaarati mana aha tii koowaad waxqabadka ay Soomaaliya gaar ahaan Puntland u qabatay waxqabad badan oo ku horeeya jira mana noqonayso tii ugu dambeysay insha Allah marka waxaan leenahay Ilaahay idin barakeeyo oo amalkiina iyo juhuudiina Allah barakeeyo wakiilka bidixdeeda iyo midigteeda joogana khayr badan Allah siiyo waxaan baaq u dirayaa imaanshaha markabka 3000 maanta way la soo hadleen bari subax bay soo galayaan dad 3000 gaaraya iyadana waxaan leenahay hawlka madaalo wali waa hogadii shaqada ay noo ikmadeen iyo dadaalka ay sameynayaan waxaan jecelnahay Hilaal al-Ahmar Imaarati duco iyo waxqabad iyo garab istaag inta ma insha Allah waa isugu dareynaa hadaan nahay gudiga gurmadka Puntland laamaheeda inta hadashay iyo inta aan wakiilka u nahay waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan khayr Allah idin siiyo waa idin ku faraxsanahay waa idin jecelnahay wanaagiina insha Allah hadda waxaan jecelnahay meel adduuni aakhira inaad heshaan oo aad liibaantaan guuleystaan leenahay garab insha Allah hela عدوي حاسد كان الله يذكر قبته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.